kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ee hawada nagala socdo daawadayaal ku soo dhawaada wararkii caalamka aanu maanta idinka haynay maanta oo maalin talaada bisha shanaad ee sanadka 2020 ay tahay 12 wararka caalamka aanu idinka hayno maanta oo aanu ku soo qaadan doono wadankan Sweden iyo waliba wadamo badan oo kale oo caalamka kamida waxaanu ku bilaabi doonaa ugu horeynba wadankan Sweden ururka lagu magacaabo Unison oo kaalmeeya haweenka iyo caruurta dalkan Sweden ayaa soo bandhigay warbixin ay ku sheegeen inuu aad u kordhay dilka loo geysto in haweenka muddadii uu socday xanuunka coronavirus-ku ururkan ayaa sheegay in markii la yareeyay dhaqdhaqaaqa dadka isla markaana ay guryihii isugu yimaadeen raggii iyo dumarkii oo markii hore shaqooyinku kala mashquulsanaa ay taasi keentay inuu bato dilka iyo waliba bukaynta ay raggu u geysanayaan haweenkooda warbixintan ayaa lagu sheegay in dadka badan ee guriga la isugu soo xareeyay ay keentay inay isku dhacaan ama iskhilaafaan iyadoo dadka gacanta qaada ee dhibaatada geystana lagu sheegay inay yihiin ragga oo iyagu haweenka u xoog sheegta hay-adan u dooda xuquuqda haweenka iyo dumarka ayaa sheegtay in ilaa intii uu bilaabmay xanuunka coronavirus-ku ay soo gaadhay hay-adda iyo waliba booliskaba boqolaal dacwadood oo ku saabsan haweenka cabanaya in raggoodu ay jirdil u geysteen iyadoo ururkan sheegay inay korodhay dilka haweenka loo geysanayo guryaha dhexdoodu qiyaas dhan 20% intii uu bilaabmay xanuunka coronavirus-ku waayahay daawadayaal weli waxaanu ku jirnaa wararkii ee wadanka Sweden weli waxaa soconaya oo cirka isku sii shareeray dagaalka biologiga ee ka dhaxeeya khubarada caafimaadka ee wadankan Sweden iyo waliba khubarada caafimaadka ee dalka Mareykanka kuwaasoo isweydaarsanaya cambaarayn iyo waliba inay isyasaan ama isxaqiraan culimada caafimaadka Mareykanka ayaa iyagoo yareysanaya ama si aad u yasaya waxay sheegeen in aanay jirin wax haliyeeyo caafimaad oo reer Sweden ama hadii ay jiraan waxay yiraahdeen waxay ka jiraan wadanka Sweden gudihiisa oo laga aqoonsan yahay khubarada Mareykanka ayaa iyagoo aad u yareysanaya nidaamka ay Sweden qaadatay ee ay kaga hortagayso xanuunka coronavirus-ka ayay sheegeen in tijaabada Sweden ay ku noqonayso halaag iyo burbur haddii ay qaataan dawlado kale saddex kamid ah khubarada caafimaadka ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in tijaabada iyo dariiqa ay Sweden qaadatay una ahayn mid la soo qaadan karo ama la tijaabin karo haddii tijaabada Sweden loo gudbiyo wadamo kale oo dibadda ahna sida dalka Mareykanka ay natiijadu noqon doonto mid lagu hoobto jaraa'idka dalka Sweden oo arintan ka hadlay ayaa sheegay in aanay ahayn wadamada Yurub oo kaliya kuwa ka hadlaya nidaamka cusub ee ay Sweden qaadatay laakiin uu dalka Mareykanku ku hayo Sweden dacaayad aad u ballaadhan iyagoo jaraa'idka Sweden ku sheegay dalka Mareykanku inuu yahay dalka dhaawaca ugu badan uu soo gaarsiiyay marka loo eego adduunka oo dhan isla markaana xanuunka koronaha ay kaga dhinteen Mareykanka in ka badan 70,000 oo qof Thomas Friedman oo khabiir Mareykan oo ku takhasusay cudurrada faafa ayaa ku qoray jariirada New York Times maqaal uu ciwaan uga dhigay Sweden miyay saxan tahay laakiin saddexdan nin ee culimada ama khabiirada caafimaadka oo ka jawaabayay hadalka khabiirka Thomas isla markaana aad uga xun in culimada Sweden lagu amaano inay keeneen nidaam cusub oo caalamka oo dhan uu ka hadlayo ayaa soo saaray warkan oo ay ku durayaan Sweden kaasoo ay ciwaan uga dhigeen ma jiraan wax haliyeeyo la yiraahdo oo Sweden waxay ka jiraan Sweden gudaheeda culimada Mareykanka ayaa ku dooday in Sweden ay qaadatay dariiq khatar kaasoo in xanuunku uu ku wada dhaco dadka oo dhan isla markaana ay ka bogsadaan oo ay iska difaacaan laakiin arintaasi ay tahay mid aad u khatar badan oo halis gelinaysa nolosha dadka Ian Bremmer oo culimada Mareykanka ka tirsan ayaa sheegay in wadamada Scandinavian-ka ee dalalkooda bandowga saaray ay ka dhimasho yar yihiin dalka Sweden laakiin sidoo kale wadamada Talyaaniga iyo Faransiiska oo iyaguna bandow saaray dalalkooda ay ka dhimasho badan yihiin Sweden
sidaa daraaddeedna aan ilaa imika la odhan karin Sweden way ku guulaysatay laakiin tijaabada Sweden lagu qiyaasi karo uun marka uu dhammaado koronuhu ee la arko khasaaraheeda ama guusheeda. Professor Anders Tegnell oo ah khabiirka Sweden u qaabilsan ka hortagga xanuunka coronavirus-ka isla markaana madaxka hay'adda caafimaadka ayaa isaguna toddobaadkii hore mar uu jawaabayay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mr. Pompeo oo xilliga ka hadlay Sweden iyo koronaha wuxuu ku sheegay inuu yahay nin iska hadlaya oo faraha la galay waxaanu aqoon u lahayn. wayahay daawadayaal inagoo ay noo soo socdaan warar aad u xiiso badan oo ku saabsan caalamka oo dhan iyo waxyaabihii maanta ka dhacay wali waxaan ku jirnaa wararkii wadanka Sweden haddii imikana aynu eegno xaaladihii ugu dambeeyay xanuunka coronavirus-ka ee wadankan Sweden dhinaca xaaladihii ugu dambeeyay xanuunka koronaha ee dalkan Sweden maanta oo talaado ah bisha shanaadna ay tahay 12 hay'adda caafimaadka ayaa sheegtay inay dhinteen 750 qof taasoo tirada guud ee dadka xanuunkan u dhintay ka dhigaysa 3313 qof. hay'adda ayaa sheegtay inuu maanta oo qura uu xanuunkan ku dhacay oo laga helay dad gaadhaya 602 qof taasoo ka dhigaysa tirada guud ee ilaa imika ku dhacay xanuunkan dalka Sweden 72217 qof. hay'adda caafimaadka ayaa shirkoodii jaraa'idee maanta ku sheegay inuu xanuunkan ka soo yaraaday goobaha qaar halka uu ku batay goobaha qaar kale. haweeneyda lagu magacaabo Karin Fisil oo ka tirsan madaxda hay'adda caafimaadka ayaa sheegtay inay wali wadaan baaritaan badan oo ay ku raadinayaan inay ku ogaadaan xanuunka coronavirus-ka isla markaana uu imika si yar oo tartiib ah u fidayo. dhinaca kale baaritaan lagu sameeyay dhinaca telefoonka oo dadku ay fariimo soo dirayeen isla markaana ay ka qayb qaateen 130,000 oo qof ayay dadkaasi 3% kamida ay sheegeen inay isku arkeen calaamadihii xanuunka coronavirus-ka. daraasadan ayaa lagu sameeyay dadka da'doodu u dhaxayso 20 jir ilaa 69 jir. Mrs. Karin ayaa sidoo kale sheegtay in baaritaanadii ay sameeyeen ay u cadeeyeen in 2.3% dadka degan magaalada caasimadda Stockholm uu ku dhacay xanuunka koronuhu halka dalka Sweden intiisa kale oo dhan ay ka noqdeen dadka uu ku dhacay 9%. Mrs. Karin ayaa sheegtay in taa macnaheedu uu yahay in 90,000 oo qof oo xanuunkan uu ku dhacay dalkan Sweden. wayahay daawadayaal warkeena kale hadaynu gudubno wali waxaanu ku jirnaa wararkii wadanka Sweden oo iyaga aynu israacinayno xisbiga bidixda ee loo yaqaano Vänster Party ayaa xukuumadda Sweden ugu hanjabay inay baarlamaanka ka dacweynayaan haddii xukuumaddu ay siin weydo 25 bilyan oo korona oo Swedish ah dawladaha hoose ee dalkan Sweden. xisbiga ayaa ku hanjabay inuu arinta mooshin ka keeni doono isla markaana uu la kaashanayo xisbiyada kale ee mucaaradka ah haddii aanay xukuumaddu lacagta bixin toddobaadkan gudihiisa. xukuumadda Sweden ayaa shalay sheegtay inay 2 bilyan oo korona ay siinayaan oo ay ku caawinayaan dawladaha hoose ee wadankan Sweden si ay arrimahooda ugu dabaraan. laakiin hogaamiyaha xisbiga Left Party ama Vänster Party Mr. Jonas Sjöstedt ayaa shir jaraa'id uu maanta qabtay ku sheegay lacagta ay xukuumaddu ugu tala gashay dawladaha hoose ee 2 bilyan ee korona ay ku filan tahay uun arrimaha degdega ah ee dawladahaas hoose. laakiin haddii ay xukuumaddu siin weydo lacag dheeraada ay ku qasbanaan doonaan inay shaqooyinkooda dhimaan gobolada iyo dawladaha hoose. wayahay daawadayaal imikana haddii aynu u gudubno wararka kale ee caalamka naga soo gaadhay dalka Denmarkna madaxda dalka ayaa sheegay inuu hoos u dhacay faafitaanka xanuunka coronavirus-ku iyadoo xukuumadduna ay tartiib u furayso dhaqdhaqaaqa dalka. ra'iisul wasaaraha Denmark ayaa la filayaa inay maanta qabato shir jaraa'id oo ay kaga hadlayso xaaladda dalka. xukuumadda Denmark ayaa furtay iskuulada hoose dhexe iyo waliba xanaanooyinka iyo waliba qaar kamida goobaha ganacsiga.
hay-adda caafimaadka Denmark ayaa sheegtay inay filayaan inuu sare u yara kaco marka ay toddobaadyada soo socda ay wada furaan dalka oo dhan, laakiin ay arrintaa kasii diyaargaroobeen islamarkaana goobahooda caafimaadku ay aada u qalabsan yihiin ama ay qalab fiican haystaan, diyaarna ayuu yihiin haddii uu in yar sare u kaco faafitaanka xanuunkani. waayahay daawadayaal, haddii aynu gudubno wadanka Afghanistanna, dalka Afghanistan maanta kooxo hubaysan ayaa weerar ku qaaday isbitaal ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. weerarkaas ayaa waxaa lagu qaaday isbitaalka dumarka iyo caruurta, iyadoo weerarka ay ku dhinteen dad 13 qof ka badan oo u badnaa waliba ama ay ku jireenba haween iyo caruur yaryar oo markaa dhalatay. weerarka labaad ee ka dhacay wadanka Afghanistan maanta ayaa lagu qaaday aas loo sameynayay mid ka mid ah madaxda booliska oo geeriyooday, iyadoo weerarkan dambe ee isqarxinta ah ay ku dhinteen 24 qof oo ka mid ah dadkii aaska ka soo qayb galay. waayahay daawadayaal, ugu dambeyntiina dalka Yemen waxaa maanta ka dhacay dagaal ay isaga hor yimaadeen xukuumadda dalka iyo ciidamo ka tirsan kooxaha koonfurta dalka Yemen oo dhowaan ku dhawaaqay inay ka goosanayaan dalka Yemen intiisa kale. dagaalkan oo maanta ka dhacay magaalada Abiyan ayaa la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. dagaalkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee labadan kooxood dhexmara ilaa intii lagu dhawaaqay dhaqdhaqaaqa doonaya inay goostaan koonfurta Yemen oo hore isagu u ahaa dawlad gooni ah, laakiin waqtiyo sii horeeyay oo la soo dhaafay la midoobay dalka Yemen intiisa kale. waayahay daawadayaasha qiimaha badan ee hawada nagal socdo, intaa waxaa noogu dhammaaday wixii maanta aanu idinka haynay caalamka, annagoo kusoo qaadanay runtii warar xasaasiya oo ka jiray wadankan Sweden, iyadoo Sweden imika ay aada ugu mashquulsan tahay xanuunka coronaviruska. waxyaabaha kale runtii adduunkuna aadka u hadalhayo wadankan Sweden iyaga laftigoodu ay wadnaha farta ku hayaan. waxaa ka mid ah wadanka siyaasadda ay xukuumaddan Sweden qaadatay oo ah siyaasad wadankii inuu furnaado oo meheradaha iyo goobaha ganacsiga aan la xidhin, iskooladana kuwa hoose iyo kuwa xanaanooyinka iyo waliba ay furan yihiin. taasina ay keentay in caalamku aada uga hadlo oo in badan la isweydiiyo Sweden miyay ku guuleysanaysaa tallaabadan ay qaaday mise way ku khasaaraysaa. xukuumadda Sweden laftigeeduna arrintaas dhinacna warwar fara badan bay ka qabtaa, dhinacna waxay ku kalsoon tahay tallaabada ay qaadeen. waxyaabaha Sweden warwarka fara badan ku haya waxaa ka mid ah in dadka dhimanaya ay u badan yihiin dad waaweyn, taasoo 70% dadkii ku dhintay wadankan Sweden ay u badan yihiin dad waaweyn oo 70 jir iyo wax ka weynaa. runtiina arrintaasi waxay ku noqotay wadanka Sweden arrin aad u dhibtay, iyadoo shalayna hay'adda caafimaadka xukuumaddu ay ka dalbatay in ay keenaan sidii loo badbaadin lahaa dadka waaweyn ee reer Sweden ee ku dhimanaya xanuunkan. waxyaabaha kale Sweden ka jiray waxaa ka mid ah inay sameeyeen baaritaanadana ay ku ogaadeen in dad dhalinyaro ah oo aad u fara badan uu xanuunkan uu ku dhacay, iyadoo markii hore loo sheegay xanuunkan inaanu dhalinyarada iyo caruurta aan waxba yeelaynin, dadka uu daran yahay uu leynaya inay yihiin dadka waaweyn. hay'adda caafimaadku baaritaano iyo cilmi baaris ay samaysay waxay ku ogaadeen in dhalinyaro aad u fara badan ay ku jiraan goobaha dadka xaaladoodu aadka u khatarta tahay ee lagu xanaaneeyo lagu daweeyo ama intensive care-ka, iyagoo sheegay in waliba dhalinyaradaasi aanay xanuuno kale oo halisa oo hore ama wadna xanuun ha noqoto ama dhiigkar ama sonkor aanay qabin, laakiin ay la yaaban yihiin dhalinyaradaas xanuunkaasi halka u gaarsiiyey, iyagoo ilaa imika baaritaanka ku wada. hay-adda caafimaadka wadanka Sweden waxaa sheegtay in dad aad u fara badan oo 50 jir wax ka yara ay ku jiraan goobaha lagu daweeyo ama lagu xanaaneeyo dadka xaaladoodu ay khatarta tahay intensive care, iyadoo taasina ku noqotay arrin kale oo runtii Sweden ay aad imika uga fakarayso. waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah in warbaahinta caalamku ay aad u hadalhayaan Sweden iyo tallaabada ay qaadatay, iyadoo runtii aad moodo mid ku taag iyo xoogaa muran inuu ka
dhexeeyo wadanka Sweden iyo wadanka Mareykanka oo isagu si gaar ah isha ugu haya wadankan Sweden saxaafadda Mareykanka iyo saxaafadda Ingiriiska iyo saxaafadaha wadamada waaweyna ay mar walba ka hadlaan Sweden iyo talaabada qaaday oo isweydiiyaan Sweden ma ku guuleysan doontaa iyadoo qaar badan oo kamidna ay ku amaanaan talaabadan Sweden ay qaaday oo marka loo eego wadamo badan oo caalamka kamid ah Sweden iyadoo furan haddana ay ka dhimasho yar tahay oo ay ka yartay xitaa dadka waxaan ku dhacay waayahay daawadayaal runtii warka iyo faalada ka dambeysayba halka ay ka imanayeen waa stuudiyahayaga wadanka Sweden warkana waxaad la socodsiinayay anigoo Barkhad Cabdilaahi Maxamed inta aan dib u kulmayno dhamaantiinba waxaan leenahay nabadgelyo.